الرحمن الرحيم marka hore dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa hadal salaam waxaan rabaa inaan ka hadlo weerarkii ay ku nafwaayeen dadka masaakiinta ah ee waxba aan galabsan ee ka dhacay Garowe diyaarinta xalay ciidan lagu diyaariyay magaalada Kismaayo kuwaas oo la doonayay in wadada la mariyo lana geeyo Dobley si ay u tagaan Ceelwa ciidankaas oo hogaamin doona Cabaas oo u dhashay gobolka Gado intaan uu guda galin arrimaha Jubbaland iyo ciidanka la diyaariyay iyo sida loo diyaariyay iyo halka ay mari doonaan waxaan rabaa marka hore inaan ka tacsiyay dadkii masaakiinta ah ee Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin ee ku nafwaayay Garowe waxay ahayd magaalo nabadeed sida waxa la aligeed waxaan xambaareynayaa labada dhinacba ee dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin xabada u quray ninka xilka hayo xilkii aad ku dhaaratay مسؤوليتيسي وأنا أتجودتها حبضي حال معها نينك حيلك الرادين يو ياد حكومة يسا مركا عادت كاري أو عن وحبا قلبسن حبض كدل باللوضو أو عادت مساكين أو قريوه دي اسكتشوغا أو قاركود سكولة دي أو دريرين أو قاركود مقالة دي أكو قناع سنة يعني عاد حبض كو باللوضو ياد حكومة يسان بل ياد حكومة يسان بارلمان بالليدهين نظام بابوتلان كجرا دولة استراتيجية دولة والبرلمانكي دورتين هدو تستور فريا يهدون فرينين سوشالي كانت عدك كالسوريدة السيسمة ما تلذي دالك هدوني سنة بحكم روجسان والرقة حبضة باللابي مقالة دي أول شيء حبضة كباللابي دادك مساكين تي عن وحبق قلبسان كدول دقالميو وربرية حكومة يعني مركا يحكميان markay maanta xil xoog ku raadiyaan ninka xilka hayo ee dadka u dhaartay adigana waa in aad la xaajooto cid kasta oo wax tabanayso oo sidii aad ku qancin lahayd adoo eegaya masaalixada dalka iyo dadkaba waxaan leeyahay marka dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ee ku nafwaayay dagaalka ka dhacay Garowe dadkaas Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo intii dhaawacana Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo ha u booqday intaas aan rabaa inaan Puntland kaga gudbo haddii aan soo noqdo xalay ayaa madaxtooyada Jubbaland waxa lagu diyaariyay ciidan iyo teknika fara badan kuwaas oo la doonayo in la mariyo wadada lana geeyo Dobley ilaa iyo Ceelwa ciidankaas oo hogaaminaya Cabaas oo u dhashay gobolka Gado waxyaabaha maskaxdayda kama waxa la yiri maskaxdayda ka digila waxa weeyaan cadowgii in xabad lagula dagaalamo lama doonayo dad Soomaaliyeed waxa la doonayaa dad aynan raali ka ahayn oo Axmed Madoobe soo magacaabay in uu qasab ku geeyo Gado in uu yiraahdo qasab ku xukuma oo halkaas isna uu dagaal sokeeyo ka bilaabo dalka Soomaaliyeed wuxuu cagaha la sii galayaa dhibaato lixaad leh dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyadda dalka haysayna ilaa ay hadda xal waxay la imaan laadahay dadka Soomaaliyeed ay ku kala badbaadiso warmid xilkiiba ku dhagan yahay oo xukun xoog u rabaa inuu dadkii ku xukumo midna waa xil raadis oo xabad buu rabaa inuu kala hor yimaado dadkii xukunkaay war maxal waara bay la imaan laadahay dawladda federaalka ee mas'uuliyadda dalka qaaday dhibaatada Axmed Madoobe oo dalka ku haya waa doorasho la'aan iyo horumar la'aan iyo cadowgii oo la dagaalamayn bal waxa ay isweydiin leh tiknikada iyo ciidanka ka baxaya Kismaayo ee ilaa iyo Dobley ilaa iyo Gada aadaya ee cadowgii dhexda uu fadhiyo in cadowgii uunan xabad ku ridin in cadowgii uunan la hadlin ee toos inta cadowgii loola hadlay leeyahay wadada noo baneeyo waxaan u soconaa Gaday inaan weerar ku qaadnay oo cadowgiina wadada u baneynayo bal dadka noocaas maxaa ka dhaxayn kara ciidankii hadda ka hor weeraray Gado waxay ka baxeen Kismaayo waxay mareen wadada cadow xabad ku riday ma jir cadowgu marka yuu ka amar qaadanaya markii la leeyahay wadada banee uu baneynayo marna uu dad masaakiin uu cidla kulaynayo cadowgu yuu ka amar qaadanaya yey xiriir leeyihiin marka ayada waxaan leeyahay Axmed Madoobe ka baaqso dagaal sokeeye oo aad ku qaado gobolka Gado halkaas bay iska joogaan hadday cabanayaan iyo hadday cabanin Kismaayo 13 sano dhex fadhida wax horumarana kama fulinaysid dhalinyarta Soomaaliyeed ee ciidanka ah la iima qorin qorigana umiinaan qaadan in dad Soomaaliyeed xabad ku ridaan
waxaad qoriga u qaadateen inaad amniga dalkiina ka shaqaysaan deegaanada maqana aad gacanta ku soo celisaan cadowga ummadda Soomaaliyeedna aad ka horeysaan deegaamada laakiin inaad dad Soomaaliyeed xabad u qaadataan leedinma qoran maanta Axmed Madoobe oo masiibo raba inuu dalkan u horseedo yuuna bridge ka dhigan yuunan dad Soomaaliyeed idinku leynin Axmed Madoobe xabad hal ma Axmed Madoobe halka Jubbaland waa in doorasho aad qabato waa in masiirka Jubbaland aad dadkii shacabka ahaa gacantoodii ku soo celiso Axmed Madoobe waqtigii aad shabaabka ka mid ahayd lama joogo waxa aad sheeganaysa maanta waa shaar dawladeed waxa aad leedahay wadada ii baneeyana waa shabaab iyo argagixiso dadka Soomaaliyeed dhibaateeyay adiga oo doonaya in aad ciidan ku weerarto gobolka Gado sidii hadda koor baad ugu weerartay Abbas waxaan leeyahay shalay adaa Gado weeraray maantana adaa raba inaad weerarto waxa weeyaan waxaad ka faa'iido cidna waxba ka siin waxaad leeynaysaa waa dad Soomaaliyeed oo dadkaaga ninka la adeegsanayna waa adiga danihii la lahaa ee siyaasadeed markii laga gaarana sida ayga meel la saaka xiri ilaan maantaba dadkaaga lagu adeegsaday bariyaad badbaadin yaa isku ka hadleen nin sidii la doona laga yeelay ma cid aaminaysa qorshii la lahaa markii laga gaarana hada wa salaam xariga lagu siideen boqol nin oo siyaasiyiin oo saas oo kale ku sameeyay Axmed Madoobe waxaan leeyahay Axmedow dalkan dagaal sokeeyaha horseedin Axmedow dalkan dagaal sokeeyaha horseedin mar alaala markii ay doorasho timaado sababta aad problem iyo dhibaato iyo dagaal u bilowdo maxay tahay doorashadii hore markii ay dhacaysay inta aadan adigu isku caanashubin ee sharci darrada aad isku dooran waxa aad fuushay wuxuu ahaa dowladda federaalka waxaad weerar cad ku qaaday Gado ahayd maanta markii ay doorashadii Jubbaland taagan tahay inaad haddana weerar cad ku qaado gobolka Gado si aad buuq iyo problem aad ugu furto doorashada Jubbaland si dadkii la rabay in xal roo raadiyo aad mid u horkeento Axmedow ka baaqso dagaal sokeeye banee waxay ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed dadkii lahaa gacantooda ku wareeji talada dadka shacabka ay leeyihiin gacantooda ku wareeji ciidanka dhalinyarada ah ee bilaa xuquuqda ku leysay ee dhibaatada aragti gelisay ee dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba dalka u soo horay ee dhaawiciisii la daryeeleen ee bugtadiisii la daryeeleen ee baahidiisii la dabooleen ee mushaharkiisii heleen inaad maanta u adeegsato dad Soomaaliyeed waa nasiib darro inteeda leeg waxaan leeyahay odayaasha iyo waxgaradka ku sugan Kismaayo haddii ay dhacdo in aad Axmed Madoobe sharci darro ku taageertaan wallaahi billaahi tallaahi taariikhda meel madow baad ka gelaysaa mas'uuliyaddeedana idinka qaadaya Axmed inta uunan dad Soomaaliyeed dhibaato u horseedin Axmed dalka laga badbaadiyo dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Puntland oo nabadgelyo ah baa waxaad ka dhex abuuraysaa nabadgelyo darro 13 sano ninkii sharci darro ku joogay maantana cadowga la wadada ii baneeyay baawurta wadada hay martay si aan gobolka Gado u weeraray baad indhaha ka daawanaysaan waxaan oran karaa markaas horay Soomaali u tirigi waa gardarro garabo Axmed dulanka iyo duulaanka uu ku haya dalka iyo dadkaba ee una